Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haye dadkiini groupkii integerska dad soo aragtay haddii kalaba casharkan was evaluating expressions oo algebra bilowgeed iska ah. Waxna waxa weeyaan horta algebrada maxaa la yiraahdaa? Algebrada waxa la yiraahdaa markay isku jiraan numberada iyo letterada. That's all. X iyo y iyo 3 iyo 2 iyo naqinay wixii waa isku jira. Wixii markii la isku daro waxa la isku yiraahdaa algebra. marka marar badan waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo qiimeyn waa la qiimeeyaa evaluate waxaa la qiimeynayaa evaluate expressions algebraic expressions waxaa la qiimeeyaa shay markaasaa la sarifaa halkan ka soo qaad number 1 example kan saddex example waan sameynaynaa number 1 waa 2x 2x plus 3y 2x plus 3y waxa loo qiimee evaluate gare marka qiimuhu x kuna yahay 2 y duna negative 3 sarifkaasaad ku sarifaysaa waxaa lagu yiri qiimee 2x 2x plus 3y 3y lagu daray marka x qiimihiisa lagu sarifo 2 y da qiimaheedana lagu sarifo -2 aad bay sheekadu waa sheeko fiican marka waxaan sameynaynaa ka nasiibka nasaa meeshaan x ku aragna waxaan ku bedelaynaa 2 meeshaan x ku aragna waxaan ku bedelaynaa 2 marka 2gii inoo soo qaad labadii x 2gii caadiga ahaa kuwii awl meesha ku yeelay 2gan kaaleene halkan x ka booskiisii waxaan gashan doonaa tiro wixii la yiri waa ku bedel baan ku bedeli doonaa oo maxay ahayd la yiri ku bedel 2 baa la yiri ku bedel right 2 baa ku bedel way plus hay waxaa kaloo la yiri 3 da maxaa ku bedelaynaa y-da 3 sida u soo qoro y-da booskeedii maxaynu ku bedelaynaa waxaa ku bedelataa baa la yiri -3 haye marka halkaa wixii ka dambeeya waa inaa integerskii taqaanaa halkaa ka dambeeya waa inaa samayn karnaa haddaadan please samayn karin integerska casharada oo isku xiga oo isku dhufashada leh kala goynta isku dar kale dib ugu noqo casharada dib ugu noqo waayahay oo Dr. Botan dheh Dr. Botan algebra dheh ama Dr. Botan math dheh ama xisaabta 101 dheh waa arkaysa 2 ku dhufo casharada cusub 2 ku dhufo 4 dhibcumayso 2 ku dhufo 4 halkan maxaa lagu darayaa calaamad 3 waxa lagu dhufanayaa -3 waa -9 hay meesha ku leeyahay dib u noqo meesha waa -9 -9 day tahay 4 -9 na waa -5 waxay ku tahay adoo $4 haysta 9 qaadatay deyn 5 deyn hableed ku hoos baa lagu leeyahay soo -5 baa tahay xabad labaad aynu ka shaqeyno oo ah hadaan xabadan kala ka shaqeyno oo ah number 2 aan dhaho markaan aan dhaho -4x plus 2y -4x plus 2y baan leeyahay -4x plus 2y haddaan waxaan leeyahay booskii 4kii sidiisaan u qoranaya soo maaha 4 sidiisa u qoro waayo -4 sidiisa u qoro -4 bracket geli x ka booskiisii waxaa la waxaa gelisay 2 ii geli plus dheh 2gan caadi u qoro y-da booskeedina waxaan gelinaynaa -3 baan gelinaynaa maxay noqonaysaa markaas waxay noqonaysaa -8 4 iyo 2 marka isku dhufto waa -8 kan kalena wuxuu noqonayaa -6 wuxuu noqonayaa -6 waayo 2 iyo -3 haddii la isku dhufto waa -6 labadaas waxay isku yihiin qiyaas waxay isku yihiin waa inaa dhahdaa waa -14 daada waa -14 yihiin waxbaa kaa khaldan waa inaad dib ugu noqotaa integerska mid saddexaad ku darnaa hayaan ku darna mid saddexaad ku darayna waxaa weeyaan kasoo qaad markaan 3 number 3 aan kasoo qaadno -3x -5y qiimee -3x -5 waxaa ku qiimeynaysa horta -3giisa igu soo qor madowgiisa igu soo qor x ka qiimihiisana halkaan gelinaya oo ah -2 2 waa x kan then minuskan iyo qor meesha hore u yaalay -5 kan iyo qor hore u yaalay meesha y-da booskeedii maxaan gelinayaa waxaan gelinayaa -5 waxaan gelinayaa
minus 3 baan gelinaya, waxaan gelinayaa minus 3 minus 3 baan gelinaya. minus 3 haddaan geliyo minus 2 minus 3 waxaa ku dhufataa 2 waa minus 6 halkaas, halkaa kalena minus iyo minus markay isku dhacaan waxay noqonayaan plus, waxay noqonayaan 15 6 waxaad ka goysaa minus 6 plus 15 waxaa meesha kusoo haraysa waa 9 waayo anoo $6 lagu lahaa baa 15 la imid marka 9 ayaa ii soo haraysa. qaybtan evaluationka raadso internetka gal wax badan ka samee. evaluationka waa inuu easy ku yahay intaana casharada soo socota aadan samayn aljabrada ah kuwa kala soo socda. halkaas kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.